taleefanka iyo shaashadana halkaas ayaynu kugu soo qoraynaa waayo wixii kale oo caawina u baahataana isaga ayaa kala soo xiriiraysaan barnaamijku waa barnaamij soconaya daawadayaal okay barnaamijkeeni baan usoo noqonaynaa marka intaas hooyooyinkii aabooyinkii dardaaranka mawlid waxa weeye soomaalidu sanadadii sanadba sanadka ka horeeya aad baan waddanka ula sii qabsanaynaa hadda markaa aragtid farmasi baa galaysaa cunug soomaali ama gabar soomaali baa kaaga soo horbaxaysaa iskuul baa tegaysaa maba u baahnidba waddanka kan waxaan imaanay for example luqadaha iskuullada waagii hore kuma jirin soomaaliga waxaa lagu leeyahay english iyo hindi iyo carabic hadda soomaali baa hoosta kaga qoran oo luqadda artay markii hataa konsolka lala hadlayo waxaa leedahay inaan qof soomaaliya la raadiyaan rabaa hadda maalinood waxyaabaan la yaab wax ka mid ah western unionka baa qof lacag ka dirsanaye markuu ka dirsanaye wuxuu dhahay aniga oday baan ahay luqadayda waxaan rabaa soomaali nin soomaali watay ku xireen waa western union marka luqadda soomaalida aad baa loo xiiseynayaa nationkaana waa nation lagu xisaabtami karo nation la riixi karo ama nation xagga loo buubi'in karo ma ahan waaya soomaalidii marka meel walba hadda dhakhtar bay yihiin dowladday ka soo qayb galeen hadda barnaamij hore aan soo daayay wuxuu dhahay kabdan macalin joogay wuxuu dhahay sanadkan minishiibiyada waxaa nooga qayb galaya gruub aad iyo aad u badan oo soo sharaxay marka waan koraynaa meene markaad imanka eegto fiil kasta soomaalidu way soo gelaysaa dabcan generationkii iminka halkan ku koray oo waxbarashada siday ahayd u soo raacay oo dadkii dee waddankan u dhashay dee iyaga laftooda hadday meesha ku dhasheen waa u dhasheen waa waddanka ka tirsan yihiin markaa fiilkii way galeen badankooda way graduate gareeyeen shaqooyinkana meelo runtii heer sare oo qayrkood ay ka qabsaan bay ka qabsadeen marka taasi waxay rajo weyn runtii u tahay ardaydan hiigsanaysa ee soo koraya maxaan ku idhahday wayna ka sii badan doonaan oo runtii saad u sheegtay dee meel walba iminka soomaali baad ugu tegaysaa meel walba soomaali baa taagan marka taasina waxay ku tusaysaa in dee waddanka aynu wax la yeelan dhexgalnay oo la qaybsanay weliba xagga waxbarashada aad bay iminka soomaalidu ugu fiican tahay runaantii wejiis aad wax loogu farxo oo la taaban karo ay tahay waa gartay marka dadaalkana waa la sii wadaya markaad iskuullada tagto dadku aad bay u dadaalayaan weliba gaar ahaan hataa gabdhuhu ha ugu bataan gabdhaha waxay uga badnaanayaan gabdhaha badidooda gurigay joogaan guriga markuu qofka joogana jaanis badan buu haystaa isagoo tv-ga fiirsanaya casharkiisuu fiirsanaya casharkiiba ku daalaya isla gurigii laakiin ninka dhallinyarada ah bannaankuu aadayaa isagoo daalan buu imanayaa buugna waa qasab inaad akhrisid waxyi maaha kuguma soo degaayo marka buugga waa inaad kala furtaa metery baaba jira runtii halkan dee waddankeennii waxaa la odhan jiray qofkaasi waa xariif oo waa clever oo waxaas inkastoo dee ilaahay uu bixiyo gifted and talentiga wax la yidhaho ilaahay bixiyo haddana waddankan dadaal baa la isku dhaafay waa gartay wax la yidhaahdo hal mar unbuu fiiriyaayo ninkaas waa ma shaqaynayso qof walba intuu dadaalo iyo intuu karti geliyo waxbarashadiisa unbuu helaya hadhow toolana imtixaan hadday noqoto iyo hadday shaqo lafteeda noqoto iyo wuxuu doonaya hadday noqotaba waa effortiska waxaa jiray hataa qofka waxaa lagu leeyahay imaashaha qayb bay ka qaadanaysaa 60% hadduu macalinka ardayga maalin walba joogo kan xatafka ah qofkii bil ka habsaama maday 2 cisho ama 3 cisho dad habsaanto wixii way isku darsamayaan sanadkii waxa laga yaabaa in maqnaashahaagu wax xiisada gaadhayo bil ama 2 bilood waa wax ka go'an waa gartay maalin kasto maalin aad ka habsaanto casharka waa wax ka go'an waa casharka go'an oo ku dhaafay waa gartay taas waay hadii jeer waalidka lagu dadaalo hataa ilmuhu hadduu hargab hayar hayo tegi karo in lagu yes hada taas waa very muhiim lagu yiraahdo waa tegi kartaa iska tag ka soo dhaafi lahaa xogaa yar iska soo qaado haafata haddii aan wax siireysan runtii qabin in lagu qasbo yiraahdo casharkaaga hase mawlid aad iyo aad eray baa wax ka dhawaajisay hooyooyinka waagiyeennii aan yareen waxaan samayn jirnay annagoo xanuunsaneen baan dhihi jirnay waa xanuunsanahay ma dhaqaaqi kari hadhowdiina iskuulkii saasaan uga harayaa laakiin hooyooyinka hadda waxaa tidhaahday ilmo ha xanuunsanaada hadduu rabo isagoo la baryayo oo hooyo la dhahayo
cashar baa ku dhaafaya bliis haafataa soo qaado hadhow macalimiinta ha ku arkaana aad ka soo tegtid ardaydu laba u qaybsamaano qofna waa qof isagoo iswada waa gartay qofna waa qof u baahan in ilaa hooyo iyo aabe la bushkareeyaan marka qofka de isagoo iswadaya isagaaba iswada oo si kastuu xanuunsan yahay qofkaas wax laga yaaba inuu yidhaahdo ma yeelayo kan kale u baahane runtii dee uga faa'iidaysanaya isagoon xubnayn maanta ma doonayo inaan tago kaasaa u baahan ilaa xad in la bushkareeyo oo la yidhaahdo hataa haddaad xanuunka kuu sii bato anigaa kusoo qaadaya laakiin casharkaaga ha ka habsaamin waa hargab yar qofkii dee wax serious adduunhayn kolley dee wax serious hato haya waalidku iyagaaban u jirayn moogta laakiin ilaa xad inuu qofku ku talagalo haddii uu wax aan runtiisa u weynaanahaynin inuunu seegin casharkiisa waayo aad bay muhiim tahay inagase maalinta dambe soo noqdo cashar dhan baa dhaafay dib inuu ugu noqdo dib ku noqoshadiina way adag tahay inuu xataa sabjadada qaarkood u fahmo because wuu miskareeyey marka halkaa dib u dhac weyn baa kaga imanaya oo casharka maalinta kale la dhigayo maadaama kii kale uu soo miskareeyey inaanu laba qabsan baa run ahaantii ayaa suurtagala waagii hore waxaa laga yaabaa carruurta iyagoo guriga joogaan inay dhahaan waa xanuunsana hadda carruur badan iyo hooyooyin badan carruurta waxay kule guriga haddaa joogto waaba boorinba because fareenkii buu ku helayaa saaxiibtinimadii buu ku helayaa quraacdii buu ka helayaa dad yacni isku wada age ah waa adoo entertainmentiga ka hartayba guriga hadduu ka tago habartii waa tegaysa aabihii waa tegaya kulli boorin meelna kama bixi karo ardaydu waa dhowr nooc haye dad baa jira runtii iskuulka baan jeclayn waa gartay arday badan baa jirta iskuulka baan jeclayn oo haddaanay waalidkaa ka baqanaynin aan sooba xaadireenba marka waalidkay ku raaligelinayaan waa gartay oo aan soomaali keliya ahayn ani ajnabi markaynu ka hadlayno soomaali carabkeena ku dhacay ciyaalkun baan ka hadlaynaa marka maxaan ku leedahay qofkaas noocaas oo kale wax kasta uu uga faa'iidaysanayaa inaanu iman iskuulka sidaa daraaddeed markaa waalidku waa inuu la socdaa oo qofku waalidku dee carruurtiisa u kala yaqaana waa inuu baaro qofkii si serious oo xanuunsanaya ee aan hababsaan lahayn maalintu yidhahdo waan xanuunsanaya qofkaasi waa serious laakiin qof wax kasta ka raadinaya janis kaasoo kale waa in waalidku ay xaqiijiyaan maxaan ku idhahdaay iskuulkana dee absenka tirada badan leh waa laysku ciqaabaaba run ahaantii sharciyan na waxaa jira ardaygu inaanu maxaan ku dhahdaay 97 ka hoos marin waa legal waa sharci waddanka yaalla weeye 97% arday hadduu ka hoos maro waalidka waa loo yeedhayaa su-aalo explanation baa la weydiinayaa waa inuu wax dee sharci oo dhakhtar soo farafegareeyey oo la hubo waa inuu sheegaa haddii uu ardaygu iman waayo sii bato gogoyskiisu sii bato wax sababan ay keeni waayaan iskuulka wuxuu sharci ugu leeyahay inuu ka ceyriyo inuu ka ceyriyo ma aha in waalidka la dacweynaya waa la ganaaxaya qaladka waxa leeyahay okay mawliid maanta wuxuu nagu saaidiyey ilmihii ka hoos mara 97% waalidkii baa lala kulmaya okay waalidkii ilmihii ayaa ka caajisay markii ka caajiseen ilmihii lama baalish gareyn karo waxa la ganaaxay waxa way hooyadii iyo aabihii baa laga rabaa de inay sharaxaan waxa kale iyo waqtiga intaasoo maalmood inuu habsa geeyay ilmihii hadduu xanuunsan yahay laasim dhakhtar baa jira cadeyn baa jirta maxaan ku dhahday wax caddayn baa laga rabaa marka hal maalin oo kaliya dee macno male lakin waxay hadday noqdaan wax dhowrkooguba joogtaa iskuulku wuu isweydiinayaa marka dee iminkana waxay noqdeen ba casriyo isla markiiba warqad baa emailka ugu soo dhacaysa waa sax weeye aabiyo hooyadii marka nolosheedu ku qabanayaan marka meetingka iyo waxaa recordka hadduu galana kolley ilmaha fiiro gaara loo yeelanaya marka mawlid su-aasha ugu dambaysa baan ku weydiinaya macalimiin badan miyaa jirta oo hadda iskuullada ka dhigta sidaa ka wareysa numberka macalimiinta ee soomaaliyeed aad iyo aad bay u soo kordhayaan secondary hadday tahay iyo primary hadday tahay marka waa wax lagu farxo run ahaantii in sabjado badan oo kala duwan ay Soomaalidu iminka ka soo qayb qaadanayaan ilaa sanadeedii u dambeeyay ilaa hadda okay koorsooyin la qaato way Soomaha macalinimada waa koorsooyin la qaato 3 sano 2 sano waa runtii iminka 2 sano laga dhigay
laba sano markaa digriga markaad ka baxdo 2 sanaad aad diyaarinaysaa oo dhinacna aad wax ka dhigayso dhinacna aad diyaarinayso labadaba isku deedna waxaad wadaysid qaadanaysaa qualify status ba qaadanaysaa markaa qaadatina markaad qualify noqotid deedna markaasaad aad macallin u sii aad gudbaysa macallin soo gelaysaa marka preparation wax la yidhaha bay imika sameeyeen haye oo markaad aad dhamayso 2 sano ama 1 sano preparation ayaad gelaysaa prepationka markaad baasto then waa qualify baatay laakiin 2 sano markaad dhamaysato waad dhigi kartaa subjectka specialist ku noqon marka waa ciyaalka okay mawlid aad iyo aad baan kaaga mahad celinayaa barnaamijkeena xiisaha lahaa maalin walbana mawlid wuxuuna leeyahay waxaan diyaar u ahay hooyooyinka ciyaalkeena kuwaan dhalnay kuwaan waalidka u nahay kuwa kasta soomaalinimadii in aan ini caawino annagu haddaan macallimiintii nahay ayuu mawlid leeyahay waa igna garab taagannahay ama waxa loo talaa insha Allah iyo tusaala lanoga baado waa siinayna sax marka mawlid wuxuu leeyahay wax walba talo iyo tusaaleyna wax walba diyaar baa inay la nahay telefonadeena shaashada hadda ka bacdayna shaashadaha waa soo fadhiisanaynaa su-aasha rabtaan baana weydiin kartaa tuushanadu ina ka caawinayaa istaandaradu ina ka caawinayaa misteega aabbaha iyo hooyada gaabka u dhaxeeya ayuu ina ka caawinayaa cunugii hataa si uusan kaaga baxsanin wax walba oo caddayna maanta horumar baa la gaaray email baad ku helaysaa aabbihii hooyada marka waxaynu leenahay aad iyo aad buu u mahadsan yahay mawlid maxaa kusoo gabagabaynaysaa barnaamijka waxaan kusoo gabagabaynayaa insha Allah de waan la socon doonaa maxaan ku raadayay waxaan ku dhiirigelinayaa waalidiinta inay dadaalaan ardayda dadaalaan waa already waa la dadaalayaan tuition Soomaaliya leedahay hataa furan oo jira imika taas horumar weyn bay tahay maxaan ku raadayay ilmaha in ilaa xad gacanta lagu hayo lala socdo waxbarashadiisa taas aad iyo aad u muhiim ah laakiin aad iyo aad bay dadku dadaalayaan aad iyo aad baa u mahadsantahay assalaamu calaykum daawadayaal barnaamijkeeni intaas ayuu ku egyahay waxaa responsor gareeyey jananka youtube-ka ah magaciisana la dhaho Rio Socdaal hadda ka bacdina halkaasaa nagala xiriireysaan barnaamijyo xiise leh baa inii soo wadnaa live baa inii soo fadhiisinaynaa macallimiin ajnabi ah iyo macallimiin Soomaali ah ardayda naftigooda baan soo fadhiisinaynaa ardayda naftigooda waraysiina kaga keenaynaa daawadayaal nala socda barnaamijyadeena waxayna leenahay like it subscribe maasha Allah waa shaqo aan hadda bilownay marka waxaynu ku dhiirigelinaynaa annaguna inaynu la socono idinkana nala socotaan wayna salaameynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu